kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Bisla TV waa maalinimo axada 10 bisha Oktoobar sanadka 2021 warka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ururka Taliban ayaa dalab xasaasi ah u gudbiyay Mareykanka waxaan warbixinada ka haynaa wararkii ugu dambeeyay ee qarax ka dhacay magaalada Kismaayo sidoo kalena waxaad warkeenan ku daawan doontaan waxyaabaha sababay inay dib u dhac uu ku yimaado doorashooyinka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan intay socoto xilli jabinteena wareedi makiyaadsan u diyaar garooba faafahinta warka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo halkan waa channelka Bisla TV oo kala socon doontaan warar sugan warbixino xasaasi ah iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaas oo ay kamid yihiin barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada daawadayaal aad baad u mahadsantiin asxaabteena ku xidhan channelka sidoo kale waxaanu ka codsanaa asxaabta nagu xidhan inay channelka noo saaraan like-ta share-ta iyo subscribe-ta waxaad nagala socon kartaan bartaanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo Twitter ballanteenu markasta waa channelka Bisla TV gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal Maxamed Xasan Ciro oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda madaxa bannaan VOA ayaa ka hadlay dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka dalka ee sanadka 2021 kaasoo dhigayay in ugu dambeyn maanta oo ku beegan 10 Oktoobar la soo doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Ciro ayaa sheegay in caqabado isbiirsada ay keeneen dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka wuxuuna tilmaamay in khilaafyada siyaasadeed ay qayb ka yihiin waxyaabaha keenay dib u dhacyada doorashada ku yimid waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ka guddi ahaan ay rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada golaha shacabka ay ku dhacdo 50 maalmood ee loo qabtay ayna filayaan in toddobaadkan la xareeyo ergooyinkii soo xuli lahaa xildhibaanada aqalka hoose gudoomiyaha ayaa xusay in doorashada golahan ay ka duwan tahay midda aqalka sare islamarkaana ergo metelaya qabaa'ilada ay soo xuli doonaan xildhibaanada cusub ugu dambeyn wuxuu shaaciyey inay heleen dhaqaalihii ay ka sugayeen beesha caalamka loogu talagalay in lagu socodsiiyo qabsoomidda doorashooyinka baarlamaaniga hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo doorashada Soomaaliya aad uga daahday waqtigii lagu heshiiyay in la qabto waxaana loo sabaynayaa isjiidka siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo xulafadooda ayaa bilaabay weerar ciidan dhul ah oo ay ku qaadayaan gobolka Amhara oo ay qayb ka mid ah haystaan ciidamada Tigreega afayeen u hadlay jabhadda Tigray ee TPLF ayaa maanta xaqiijiyay inuu jiro dhaqdhaqaaq xoogan oo ka dhana ciidamadooda warbixinadan ayaa yimid maalmo kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed loo dhaariyay muddaxileed cusub Isniintii isagoo wacad ku maray inuu difaaci doono sharafta Itoobiya xilli uu sii kordhayo cambaareyn caalami ah oo loo jeedinayo dagaalka 11 bilood ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya weerarada ayaa ka dhacay dhowr goobood oo ku yaala gobolka Amhara Khamiistii iyo Jimcihii sida ay sheegeen ilaa wareedyo la hadlay wakaaladda wararka AFP iyadoo ay sii kordhayaan wararka ku saabsan in dawladdu ay qaadayso dagaal culus oo ka dhana Tigreega dagaalka Tigreega ayaa bilowday November sanadii 2020 markaas oo ciidamada Abiy ay degdeg ku qabsadeen gobolka hase yeeshee Tigreega ayaa soo rogaal celiyay oo dib u qabsaday caasimadda gobolka Mekelle dabayaaqadii bishii Juun dagaalka ayaa wixii markaasi ka dambeeyay ku fiday gobolada Amhara iyo Canfarta wuxuuna dhaliyay waxay qaramada midoobay ugu yeertay musiibo bini'aadanimo iyadoo boqolaal kun oo qof ay wajahayaan xaalad macaluula waxaa jira warar in dagaal culus hadda dib u qarxi karo maadaama uu dhamaaday xilli roobaadka waxaana dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Amhara ka socda ciidan urursi xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa war ka soo saaray kulan maanta oo roob la yeeshay qoyska Ikraan Taliil Faarax kaasoo ra'iisul wasaaraha loogu gudbiyay cabasho la xidhiidha caqabada ku horgudban in la guda galo baaritaanka kiiska Ikraan afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay in kulankaas maanta ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha
ay qoyska Ikraan Tahliil ku soo bandhigeen cabasho ay ka qabaan caqabado ay sheegeen inay ku horgudban yihiin xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada oo loo xilsaaray baaritaanka kiiskaasi. sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu galabta mar kale ku celiyay in dhankiisa aanu wax gorgortana ka gali doonin kiiska Ikraan ayna ka go'an tahay inay cadaalad ay hesho maalin uun ha dhawaato ama ha dheeraatee. xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo hooyada dhashay Ikraan Tahliil Maama Qaali Maxamuud Guhaad oo habeenka xalay warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in maxkamadda ciidamada ay ku wargelisay in baaritaanka kiiskaas uu ka dhaqaaqi waayay saraakiisha oo madaxweyne Farmaajo u magacaabay taliska Niisa ee habar Khadiija jooga halkaas oo xarunta lagu waayay kana howlgalaysay Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee Niisa. faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday bambooyin oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed. weerarka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday barkaantarool oo ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin gudaha deegaankaasi waxaana ka dhashay khasaaro xoogan. ugu yaraan 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyo wiil yar oo 12 jir ah ayaa ku dhintay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen deegaankaahi. askarta geeriyoodka ayaa waardiye ka hayay kantaroolka oo xalay weerarku ka dhacay waxaana goordamo meesha ay wax ka dhaceen gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa amniga. wararka ayaa intaasi ku sii diraya in weerarka kadib ay howlgal qaadeen ciidamada dowladda isla markaana ay dileen nin lagu tuumayo weerarka kaasoo la sheegay inuu caan ka ahaa Janaale isla markaana marar badan lagu xidhay saldhigga deegaankaasi. xaaladda ayaa saaka deegaanasa yeeshay ciidamada xoogga dalka ayaa isku fidiyay agagaarka deegaanka Janaale kadib weerarka xalay lagu soo qaaday deegaankaasi. weli ma jiro wax faahfaahin oo ay saraakiisha ammaanku ka bixiyeen weerarka iyo howlgalka xigay waxaana si caadi ah saaka u socda dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka. inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ka fuliya gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo beegsada xarumaha ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM. dhalinyarada aqoon-yahanka ee beesha degta magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo saaray baaq ka kooban 5 qodob iyagoo fariin u diray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo hoggaanka xoogagga ururka Ahlusunna wal Jamaaca. warqadda ay xaaladda ka taagan deegaankaasi ka soo saareen dhalinyaro aqoon-yahanka ee ku sugan Muqdisho oo ogeysiis ka haysata ra'iisul wasaare Roble ayaa walaac xoog leh looga muujiyay dhibaatada ka dhalan karta sansaanta colaadeed ee Galmudug ay cagaha la gashay. waxay sheegeen in dadkii reer Guriceel ay ka barakaceen magaalada oo ay istaagtay nolosha asaasiga ahayd ee bulshada iyagoo cadeeyay in midnimada Galmudug ay u arkaan lama taabtaan. madaxda dowladda federaalka ayaa uga baaqeen inay degdeg u farageliso xaaladda sii cakarmaysa ee Galmudug si looga baaqsado isku dhacyo hubaysan iyo xaalado bini'aadanimo oo ka dhasha. sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ugu baaqeen in maamulkiisu uu ka baaqsado wax kasta oo uga sii dari kara xaaladda colaadeed ee ka taagan Guriceel. dhalinyaradan ayaa maamulka Qoorqoor ka dalbatay inuu fursad siiyo waawaanta iyo wadahadallada socda si looga baaqsado dagaal iyo dhiig ku daata oo ka dhaca Galmudug. dhanka kale ururka Ahlusunna ayaa dhalinyaradan ka dalbatay in wadahadal ay ku raadiyaan wax kasta oo ay ka tabanayaan isla markaana ogolaadaan maamulkii sharciga ahaa oo ka arriminayay deegaanada ay qabsadeen. 6 xisbi oo mucaarada ayaa sare u qaadaya wada shaqayntooda si ay xukunka uga tuuraan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP doorashada dhacaysa sanadka 2023. madaxweyne Erdogan ayaa markii horeba wajahaya cadaadis iyadoo codadka rayga ay muujinayaan inay sii wiiqmayso taageerada shacabka ee isbahaysiga xukunka haya. 6 xisbi oo mucaarada ayaa sare u qaadaya wada shaqayntooda si ay xukunka uga tuuraan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP doorashada dhacaysa sanadka 2023. madaxweyne Erdogan ayaa markii horeba wajahaya cadaadis iyadoo codadka rayga ay muujinayaan inay sii wiiqmayso taageerada shacabka ee isbahaysigiisa xukunka haya iyagoo ballaarinaya wada shaqayntii ka caawisay inay dhaawac ku gaarsiiyaan madaxweyne Erdogan doorashooyinkii dowladaha hoose ee sanadka 2019 ayaa xisbiyadu waxay kulan kala qabteen
salaasadii waxayna qorsheynayaan kulamo toddobaadla si ay isugu raacaan mabaadi' ka hor dhammaadka sanadka. Mucaaradka Turkiga waxay isku dayayaan waxaan hore la iskugu dayin in si midaysan loo wajaho dowladda. Waxaa sidaas yidhi Murat Yildiz oo ah falanqeeya siyaasadeed. Taageerada dowladda Erdogan ayaa hoos ugu dhacday sababo la xiriira sida ay ula tacaalayso dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka sida sare u kaca shaqo la'aanta iyo sicir bararka cudurka Covid-19 iyo dab ka kacay kaymaha dalkaasi. Ray ururin la sameeyay ayaa muujinaysa in taageerada xisbiga AKP ay tahay 31 ilaa 30%, taasoo aad uga hooseysa codadka uu xisbigu ka helay doorashooyinka baarlamaanka ee sanadka 2018 oo ahayd 42.6%, halka xisbiga xulafada la ah ee MHP ay taageeradiisu tahay 8 ilaa 9%, taasoo ka yar heerkii 2018 ee 11%. Wadahadallada mucaaradka ayaa ujeedkoodu yahay in lagu helo mabaadi' ay wadaagaan intii ay isku raaci lahaayeen musharax madaxweyne, iyadoo hadafka uu yahay in meesha laga saaro nidaamka madaxweyne ee la bilaabay sanadka 2018 laguna laabto nidaamka baarlamaanka. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga CHP oo ka qayb galay wadahadallada ayaa sheegay in nidaamka madaxweyne uu ka tuuray Turkiga oo uu awood badan geliyay gacanta madaxda dowladda. Hase yeeshee ku-xigeenka madaxa AKP ayaa ku gacan sayray wadahadalladan ku saabsan soo celinta nidaamka baarlamaaniga, isagoo sheegay in nidaamka cusub uu shaqeeyay isla markaana yareeyay xasilooni darradii siyaasadeed. Isbahaysiga ay samaysteen xisbiga midigta fog iyo bidix ee dhexe ee CHP ayaa 2019 horseedeen xisbiga Erdogan ee AKP loogu adkaado doorashooyinkii magaalooyinka Istanbul iyo Ankara, taasoo meesha ka saartay fikradii ahayd in Erdogan aan laga adkaan karin. Isbahaysiga ayaa waxaa hadda uu kusoo biiray xisbiga Future Party ee ra'iisul wasaarihii hore Ahmed oo xulafo la ahaan jiray Erdogan iyo xisbiga DEFA Party ee wasiirka hore ee dhaqaalaha ee wadankaasi. Wararkan iga soo gaadhaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in saaka qarax nooca miinada uu ka dhacay gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo oo xarun ku meel gaadh u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Qarax ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay xaafadda Farjano, gaar ahaan guri uu degan yahay sarkaal ka tirsan nabad sugidda Jubbaland, sidaan xogta ku helnay. Wararka ayaa sheegay in qaraxa uusan geysan wax khasaare ah, isla markaana uu ka dhacay albaabka guriga uu degan yahay sarkaalkaas oo aan weli magaciisa la shaacin. Sidoo kale waxaa goobta gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee Jubbaland oo howlgallo kooban ka sameeyay agagaarka meesha ay wax ka dhaceen, balse ma jiro ilaa iyo wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha amnigu ka bixiyeen qaraxaasi howlgalka xigay waqtigani. Xaaladda ayaa hadda mid degan, waxaana si caadi ah kusoo noqday dhaqdhaqaaqa meesha ay wax ka dhaceen kadib baadhitaano kooban oo ay sameeyeen ciidanka Jubbaland. Kismaayo ayaa waxaa muddooyinka lasoo dhaafay ka dhacayay falal ammaan darri oo isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo qaarkood ay fulisay kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, maamulka Taliban ee Afghanistan ayaa ku booriyay Mareykanka Sabtidii inuu fasaxo kaydka bangiga dhexe ee Afghanistan intii uu socday kulan ay la qaadanayeen wafdi Mareykan oo ku sugan wadahadallada ka socda wadanka Qatar. Wadahadalkan Mareykanka iyo Taliban ayaa kii ugu horeeyay oo foolka foola tan iyo markii kooxda Taliban ay la wareegtay talada dalka kadib bixitaanka Mareykanka dabayaaqadii bishii August. Wasiirka arrimaha dibadda Taliban Amir Khan Muttaqi oo hogaaminaya dhinacooda wadahadallada labada maalmood ah ee ka socda caasimadda dalka Qatar ee Doha ayaa sheegay in wafdiga Mareykanka ee fadhigii furitaanka shirkan ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan gargaarka bini'aadanimo ee dalkaasi, ayna sidoo kale dadka reer Afghanistan siin doonaan talaalka coronavirus ama Covid-19. Fariin maqaala oo Taliban ay la wadaagtay suxufiyiinta ayuu Muttaqi ku sheegay inay ka wada hadleen bilowga waa cusub oo u dhexeeya labada dhinac oo iska soo horjeeday muddadii ku dhowaad 20 sano ahayd ee Mareykanku haystay Afghanistan. Baahida loo qabo in si isku mid ah loo abuuro xidhiidh wanaagsan ayaa wadahadalka lagu xoojinayaa, waxaana carabka ku adkaynay baahida loo qabo in la sii daayo hantida malaayiineed
Afghanistan kadib duruufo adag oo soo wajahaya Afghanistan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Taliban Amir Khan Muttaqi. Washington ayaa xanibtay balaayiin dollar oo ah hantida Afghanistan taasoo inteeda badan ay ku jirto kaydka federaalka Mareykanka tan iyo markii Taliban ay la wareegtay talada wadanka Afghanistan. Bixitaanka ciidamada uu hogaaminayay Mareykanka iyo deeq-bixiyayaal badan oo caalami ah ayaa Afghanistan ka jaray deeqihii maalgelinayay 75% kharashaadka dadweynaha sida uu sheegay Bangiga Adduunka, taasoo caqabad ku noqotay maamulka Taliban inay bixiyaan mushaharka shaqaalaha dowladda. Watay daawadayaal qodobkaas ayaa guriga gabagabowha warka Bisla TV. intaanu ku kulmayno warkan iyo wararka xigaba waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo kulanti